xilli maalmihii u dambeeyay shacabka ku nool degmada Afgooye ay ka cabanayeen ciriiri iyo nadaafad xumo ka jirta bartamaha degmada Afgooye gaar ahaan halka loo yaqaan isgoyska qaadka ayaa arintaasi waxaa ka jawaabay taliska dowladda hoose waxaana maanta taliyaha dowladda hoose Awil Carabay iyo mas'uuliyiin kale ay tageen goobta cabashada ka jirtay waxa ayna ku amreen ganacsatada hilibka inay ka qaadaan isgoyskan isla markaana ay geeyaan kawaankii looga talagalay amarna ka soo saaray ciidii lagu arka in tallaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonaan waxaan bilaabnay shaqada dowladda hoose oo degmada Afgooye waa dareemay wadanka shalay wadankii idaacadu ay u dagaalaan gudaheed laakiin waxa ka muuqda dhammaan bedel muuqda ka muuqdo shaqada ka qaban saakay kawaanka waxaan geeyay malay waxaan geeyay kawaanka loogu talagalay hilibka waxaan geeyay kawaanka loogu talagalay qolada fayadowrka ayaan amar ku siinay inay shaqo ka qabtaan nadiifiyaan shaqada iyo beedada taalo waxaan rajaynayaa xildhibaan maalmaha soo socda in bilaa magaalada soo laabato waana waxa noola idmada noola magacaabay kamid aheed waajibaadka in la gudanayno ayaa saaka hawl galnay waana dareemay xildhibaan ku arki doonta xaafadda bidix ku arki doontaa saaka wadanka waa liibaro shaqo la yaqaana ka qabanay waana joogtay doonaa dadweynaha ku ganacsado halkan jooga waxaan ugu baaqayaa inay u hoggaamtaan waa amiirta soo baxday ka soo baxday maamul goboleedka koonfurta loo qaatay degmada Afgooye maamulka gobolka inay u hoggaamtaan amiirta la furay laguma arki doono hilib dambe wadada dhex yaallo ama meel naafadara lagu arki doono waxaan geey doonaa goobi loogu talagalay loo cayimaan geey doona direedmo qaabta lagu arkaa waxay mutayso doontaa sharciga ayaa horgeyn doonaa ayuu laga qaadaya tilaabada ku habboon dhinaca kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo aan kula kulanay goobtaasi ayaa dareenkooda ku cabiray in markaasi ay wax weyn loo baahna ay tahay maanta farxadda ana faraxsanahay waan soo koobi karo ma aha degmada Afgooye shacbiga ku noolaanahay odayaasha dhaqanka nahay isgoyskan si ahaa jirto haba waxa arag ilaalka dhana aheyd mar taliyaha milkiilaha aad iyo aad u mahadsan yahay mahadsan yahay walaalkayna qaarka waxaan rabnaa shaqada hadda asqabto in laba jibaaro annakan garabkiisanahay tar itusaal garabkiisanahay habeen maalin karsiisanahay xaqan naga maqnaa ilaahay waana soo celi cadaalad naga maqnaa ilaahay isku soo wada duuduub oo halkan oo ah isgoyska qaadka ee bartamaha degmada Afgooye ayaa waxa hore ay u ahayd mid ciriiri ah dadka qaarkoodna ay dhib ku ahayd marideeda waxaana dadka qaarkood ay noo sheegeen in haddii tallaabadan ay noqoto mid hargasha ay wax weyn ka bedeli doonto bilicda magaalada inteeda kale Cabdifataax Ali Cumar Tawakal Televisionka Universal gobolka Shabeellaha Hoose.